ahay marka clusterka Somali Youth Cluster way afar iyo afartan urur gobolada dalka ka jira dhanaa ku midowday marka taas aan ugu gudbo munaasabadan quruxda badan runtii waan uga mahadcelinayaa wasaaradda isboortiga wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga dhalinyarada xildhibaan Cabdisataar xildhibaan Maxamed Cumar iyo xildhibaan Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir dhalinyarada kala duwan dhalinyaro badan oo talent leh oo gaar ahaan gobolka Hiiraan ka soo jeedana maanta meesha waan uga jeedaa runtii waxaan leeyahay waa munaasabad loo baahnaa in mar hore la qabto oo laga dhidiyo laakiin waqti xaaji waxa la yiraahdaa xilligeedii ay qabsoontaa waan uga mahadcelinayaa cid waliba ee kaalin mugla ka qaadatay qabsoomida hawshan marka uu guda galo dhibaatooyinka ka taagan Hiiraan oo hadda kala horeysa biyo-baxadii oo saameyn badan ku yeelatay guud ahaan nolosha aasaasiga ee dadka ku nool magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka u dhow waxaan dhihi karnaa waa tii ugu xumad ee abad maanta waxaan Soomaalida guud ahaan ugu baaqaynaa inay kaalin mugla ka qaataan dhibaatada haysato walaalaha Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku agdhow oo saameyn badan ay ku yeelatay caqabadka faraha badan ee wadanka haysta iyana anaguna mid ugu weyneed nagu habsatay tan waxaan dhihi karaa waa masiibo weyn waa masiibo qaran waa masiibo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed taabanaysa waxaan leeyahay Hiiraan waa resource-gii gobolada dhan meesha ay resource u ahayd waa gobolada dhexe dhan haddii maanta dhibaato gaartay waxaan aaminsanahay inay Boosaaso dhibaato gaartay magaalada Muqdisho dhibaato gaartay gobolada dhexe ee Bay iyo Bakoolna ay dhibaatadaasi gaartay wax badan oo resource oo gobolka ka soo bixi jireen ee gaari jireen goboladaas oo kaleente waxaan leeyahay maanta waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyaradii Hiiraan waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyaradii guud ahaan Soomaaliya in maanta nala garab istaago dhibaatada inagaba Hiiraan ahaan idinkuma fiirsaneen waan ognahay marxaladka gobol gaar ahaan gobolka Hiiraan taariikhda uu leeyahay tan biyo-baxada waa masiibo Ilaahay rabbaani uu noo keenay ولله الحمد إله نقوم هاد علينا دب والبؤ يمادو إن يحمى والبئ دبعت كستوت مادو أو رباني إن إلهي وشكرنا ووحماش كجرة مدة كلامتو مصيبة أو بني آدم كو أي سمستين أو كم إذا دجالة صارنا نقضي أهلية ضدك ولا لها كود دجالة ما هي مجالة بلدوين وحال كده وجوه الرجل الجاري ولا ليه كقب خاطين ولوجم هاد علينا جارهان ضدك الدجال كأه أو كقب خاطين إن علادة سجوجيان ما أنت وحرجاني نسيت وربحنا ده عنكو هينو إن عيد ماذا لك لقاعدة نبضنا نشلو أقولاده ولله الحمد لله أقوم هتصل وعارفنا أنا باق قدرنا جارهان دليل ما أنت حبض واحد كل ما نايا قضي ما نصير هرتين ضدك يجوه الرجال شيئين واحد كوبا أي ولا ليرو واحد قريها اللي يسوق ديباي ولا ليرو أخلي عن مدينه عن كشخ خينا سيدنا أونولانهن الدوك هذا الأوجين ماشي أبو سعود واحد عبد عوض يبري إن تكون أولاد ويدبعت بدلها ليرو واحد أباهين المستقبل واي مستقبل كده كيبري كي معتواي وحاول بهان هاي إن هلنا مصلحة بل ما أنا قلت محنا قد حين إن أنا نفتكر كان يسويدينه دلنا أنا هاي دجان كان كسر جنا هيرا الله إله أنا وأبوري إنما جو أرسلين إنه دجان كان كنا الله إله أنا وأبوري محا إنه ضنا مانتا محا تسلم إنه لان كرنا أضياش عم وقت جو دويدا ما ذي مانتا محا سمين كرنا أنا محا أبوري كرنا جو نوعي أهين سواء مانتا أو أبوري كرنا ورينا هدي حتى إتكلم وصدق جاري أنا شعونه وحأبها أنها عروت أن نقدم بيو أنا وأنا قلنا يكون نقدر شيء يكون وراء نبض إنه يكون وراء نبضنا أن عندنا من وراء هيران وحين قتمر اللوبي أو برش أهان يدق أنا أهان باللوبي ضد كذين يتشوعين وحرم أنا عبد ربما خدت كريه هيران يكسر جيد قبل ذا سيراهي كو أبوري كذا شيء كنا بشيء وعرفنا إني ما أنتم يستعجل برش ذا سيد الله سبحانه تبحين لها sida walaalkay sabar sheegay dhibaatadan way dhaba hadda biyaha way baxaysaa laakiin saameyn intee la ay abuuraysaa waxay abuuraysaa gurihii way dumaan musqulihii way dumeen malaria imaanayso shubana imaanayaan waxaan rabnaa marka madashan maanta dhalinyarada Hiiraan loo qabtay inay ka soo baxaan horta in la helo dhalinyarada hadda waxaan hayaa 20 volunteer dhaqaatiir waxaan u baahanahay dhalinyaro kale ku darsoonto inay u diyaar garoobaan inay volunteer garayaan deegaanadii la tago dhaxda la xirto
daawada ani halay u habaaro anaa keenay meeshan ka keenay laakiin waxaan u baahanahay dhalinyarada kaleente ee maanta kaalin mugli inay ka qaadato loo baahan yahay maanta qof iyo shakhsi ee magaaladan joogo ee baladweyne dadkiisa jooga ma aaminsani inuu maxaan ku dhahay dhibaatada uusan la qabin waxaan aaminsanahay qof kasta oo hiiraan ka soo jeedin dhibaatada taabatay ugu yaraan ha loo baahdo inuu wax u diro ugu yaraan ha loo baahdo inuu xitaa ka falceliyo aniga maalintuu dagaalka bilowday ilaa maalinta hadda dhibaatada bibaxada ay dhacayso waxaan u taaganahay in dadkaas maslaxad helaan waxaan u taaganahay in dadkaas ay maxaan ku dhahay wada noolaadaan isla markaana loo gargaaro meel walba u galnay meel walba ku dhacnay waxaan u baahanahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir oo hadda basically aan dhex joogno inay kaalin mugli iguna ka qaataan qaabkii dadkaas loo samata bixinaa innaga maanta dhibaatada nagu dhacdo hadday idinku dhici lahayd innaga way idinka harneen maanta Soomaaliya rabaa u baaro in la garab istaago dhibaatadaas dhibaato caam ah waa dawladda Soomaaliya mar walba si gooni ah inaan cabaaray laakiin waxaan isleeyahay kaalintii aan ku lahayn ka gobol ahaan way ka gaabisay marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh